ardaydan 1766 arday oo isugu jira ardayda joogtada ah oo dufcaddii 14 ah iyo ardayda dibadda ka dhigata oo dufcaddii 13 noqonaysa ayaa ka qalin jabisay jaamacadda Jigjiga. munaasabadda qalin jabinta jaamacadda Jigjiga waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mudane Mustafa Maxamed Cumar, madaxweynaha jaamacadda Dr. Bashiir Cabdullaahi, madaxweyne ku-xigeenka jaamacadda, wasiirka xafiiska waxbarashada dawladda deegaanka Soomaalida Mudane Cabdullaahi Cabdi Aadan, wasiirka xafiiska arrimaha haweenka iyo carruurta, waalidiinta, ardayda iyo marti sharaf kale. madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mudane Mustafa Maxamed Cumar oo ka hadlay munaasabadda qalin jabinta ayaa ardayda ugu hambaliyay farxadda qalin jabintooda sidoo kalena ku booriyay inay aqoonta ay barteen ay dadkooda ugu adeegaan. aqoon la'aan waa iftiin la'aan, waxbarashadu waa furaha nolosha. kolka waxaan maanta aad iyo aad ugu hambaliyaynayaa dhalinyarta soo dadaashay, soo dhabar adeegtay ee maanta ay maalinkoodii tahay runtii maanta qalin jabinaya, iyo waalidiintii ka dambeeyay dadaalkooda ee soo rafaaday, soo dhabar adeegay duruufo fara badan, duruufo kala duwan, caruurtooda ku soo tabcay. dhammaantiin maalinka farxadda ee isugu timaadeen mar kale hambalyo ayaan leeyahay. fariin gaaban oo aan gaarsiinayo ardayda qalin jabiyaasha waxaa weeye, maanta waad qalin jabinaysaan, waxaad soo xidheen imtixaanaadkii waraaqaha, imtixaankii warqadda aad ku gelayseen ama computerka ayaad dhammayseen, laakiin imtixaankii nolosha ayaad bilaabaysaan. marka inaad psychologically diyaar ahaataan. qalin jabinta maanta macnaheedu ma aha inaad saad qalinka u jabiseen qalin ma aydan qaanidin. waxa weeye qayb ka mid ah waxbarashada oo bilowgii ayaad dhammayseen, qaybo kale aad idin harsan, adeeg bixintii shacabka aad u soo waxbarateen baa idin harsan, anficii waalidkii ku soo tamcay baa idin harsan. marka inaad taa ogaataan. talabaad, waxbarashadu ma aha shahaadada la qaato kaliya. shahaadada iyo waraaqaha certificate-kii haddii ayna la soconin akhlaaqiyaadkii iyo isbeddel garaad hadduu la soconin waxbaa la bartay lama odhan karo. sidaa daraaddeed waxaan kula dardaarmayaa inaad ka fogaataan dhaqanada xunxun, fikrada xunxun, oo aad u qalantaan shahaadooyinka aad wadataan. waxaan rajaynayaa inaad noqon doontaan cudud shaqaale iyo cudud adeegayaal iyo barayaal wax ku soo kordhiya shacabkooda. akhlaaqiyaadkiinana laga arki doono inaydan ahayn kuwa jaamacadda intaad albaab ka soo gasheen idinkoo sidiinii albaab kale ka baxay, laakiin inaad tihiin kuwa intii aad jaamacadda joogteen wax kororsaday oo aqoonta keliya maahe inay aqoon tahay in kale waxaa lagu gartaa waa akhlaaqda wey. marka ahamiyadda aad siinaysaan aqoonta iyo akhriska inaad siisaan akhlaaqda oo aad noqotaan kuwa maaragtay anfaca waalidiintood iyo deegaanka ayaan ku dardaarmayaa. deegaanka Soomaalidu saad la socotaan in badan wuxuu ahaa deegaan dib uga dhacay waxbarashada, ilaa iyo haddana waxaan nahay deegaanada ugu hooseeya marka la eego halbeegyada waxbarashada ee dalka oo dhan. marka jaamacadda Jigjiga iyo jaamacadda Qabri Dahar oo ku yaal oo jaamacadda federaala laakiin ku yaala deegaankeennu wax weyn bay ka bedeleen nolosha dadkeenna. waxayna soo saareen cudud shaqaale iyo adeegayaal iyo barayaala, laakiin waxaan u baahnahay jaamacado ka badan. hase ahaatee wax walba waxaa ka muhiimsan tayada waxbarashada. tiradu sida doon ha noqotee ilaa iyo dugsi hoose, dugsi sare ilaa jaamacad waxun baan ka haynaa, laakiin waxaa loo baahan yahay inaan wax ka bedelo tayada waxbarashada. tayada waxbarashada wax laga bedelana waxay u baahan tahay dhaqanadii hore ee hadda ka hor deegaankeenna caadada ka aha in laga baxo, oo ay ugu horrayso in wax loo barto ama in shaqo lagu galo ama inaan la xeerin qaabka imtixaanka loo geliyo oo qishta ay ka mid tahay iyo waxyaalaha aan munaasab ahayn oo qofku naftiisa uu khayaamayo meelna una gaarayn. marka dhammaan ardaydan inay noqdaan arday ku baraarujiya kuwa kale ee iyaguna jaamacadaha hawaysanaya in loo baahan yahay in wax laga bedelo qaababkii hore ee loo fikirayay. waxaan idin rajaynayaa waqti wanaagsan maanta xafladiina oo farxadeed, mustaqbalkana inaad noqotaan kuwo ka libkeena himilooyinkiinii ku aadanaa nolosha adduunka. aad iyo aad u mahadsantihiin. mar kale waxaan idin leeyahay hambalyo. madaxweynaha jaamacadda Jigjiga Dr. Bashiir Cabdullaahi oo munaasabadda ka hadlay ayaa ka warbixiyay taariikhda jaamacadda iyo heerarkii ay soo martay, wuxuuna ardayda kula dardaarmay in cilmiga ay barteen ay wax kaga bedelaan wadankooda. waa baajkii 14aad ee jaamacadda Jigjiga. saad la socotaan deegaankeennu fursad laba jaamacadood ayuu leeyahay, hase ahaatee ilaa hadda kuma filla
baahida waxbarasho ee deegaanka ka jirta sidaa daraaddeed marka hore waxaan u hambalyaynayaa dhammaan ardayda qalinjabinaysa halkan mar labaad waxaan u hambalyaynayaa waalidiinta la soo dadaalay 4 sano ilaa 5 sano ee maanta fursaddan qaaliga soo gaarsiiyay ardadaas iyagana waan u hambalyaynayaa intaa ka bacdi waxbarashadu meel kuma koobna waxaa loo baahan yahay furihii baad hesheen maanta waxbarashada inaad sii wadataan wixii aad barateenna bulshadiinna baahiyaha kala duwan ee ay u qabto hadday noqoto technology-ga hadday noqoto dhaqaalaha hadday noqoto arrimaha bulshada inaad kaga qayb qaadataan ayaan jeclaan lahaa inaan idinku soo idin xasuusiyo dhankooda wasiirka xafiiska waxbarashada dowladda deegaanka Soomaalida mudane Cabdullaahi Cabdi Aadan iyo madaxweyne ku-xigeenka jaamacadda ee dhinaca tacliinta Dr. Cabdirauuf Axmed oo madasha qalinjabinta ka hadlay ayaa ugu hambaliyay ardada farxadda qalinjabintooda dufcadda 14aad ee ka qalinjabisay jaamacadda Jigjiga ayaa waxaa si gaar ah loo abaalmariyay ardadii ugu dhibca sareysay waaxaha kala duwan ee jaamacaddu ka kooban tahay kuwaas oo lagu doonsiiyay abaalmarna sharafeed ay ku mutaysteen dadaalkii ay geliyeen waxbarashada muddadii ay socotay taasoo ugu dambayn sababtay in natiijooyinkoodu noqdaan kuwa lagaga dhawaaqo magacaantooda xafladii ballaadhnayd ee ay goobjoogka ka ahaayeen waalidiintoodii ku soo tabacay madaxda ugu sarraysa deegaanka Soomaalida iyo kuwa jaamacadda